Rabshado xooggan oo gacan ka hadal ah oo ka dhacay bartamaha magaalada Tromsø ayaa lagu soo waramayaa in ay booliiska ku baxeen. 3 qofood ayaa lagu soo waramayaa in ay rabshadahani ku dhaawacantay, kuwa oo loo qaaday isbitaalka magaalada, halkaas oo ay boolisku sheegeen in mid ka mid ah uu dhaawiciisu aad u cuslaa, halka labada kale aysan ilaa iyo hadda heerka uu dhaawacoodu gaarsiisan yahay aysan qeexin, walow lagu soo waramayo in uusan dhaawacoodu u cuslayn sida midka saddexaad. Booliiska ayaa sheegay in dhacdadan ama dagaalkan gacan ka hadalka ah ee kooxdan ku dhexmarayo bartamaha magaalada lagu soo wargeliyay si degdegana ay uga jawaabeen. Waxa uuna sheegay taliyaha howlgallada booliiska Robin Lindberg in ay ku baxeen dhacdadani ayna gaareen goobta oo aad u kacsaneyd, halkaasoo markii ay tageen ay kula kulmeen dhib aad u xooggan oo goobta ka jira iyo sidoo kale buuq badan iyo dagaal badan oo ka jira, halka 3 qofoodna ay dhaawac ahayd, mid ka midana uu aad dhaawiciisa u cuslaa. Waxa uuna sheegay in aysan ilaa iyo hadda cadeymo buuxa haynin, hayeeshee waxa uu xaqiijiyay in 7 qofood ilaa iyo 8 qofood ay ku lug lahaayeen dagaalkan gacan ka hadalka ah ee ka dhacay bartamaha magaalada. Waxa uuna intaa ku daray in ay hadda baaritaano xooggan hayaan ka ay ku ogaanayaan waxa sababay dagaalkan gacan ka hadalka ah ee dadkan tirada badan ku dhexmaray, isaga oo sheegay in uu jiray waxyaabo dagaalka loo isticmaalay oo ay isu adeegsanayeen raggan isku dagaalaya bartamaha magaalada. Wuxuuna sheegay midka dhaawaca culus in hadda lala tacaalayo xaaladiisa, halka labada kale dhaawacoodu iyaguna lagu dabiibayo isbitaalka. Waxa uuna intaa ku daray in ay hadda waraysiyo la yeelanayaan markhaatiyaasha iyo dadkii goobta ku sugnaa, isaga oo sheegay in ay baaritaano iyo xuuraansi ka sameynayaan goobta. Wuxuuna intaa ku daray in lasoo qabtay 3 qofood, kuwa oo lagu tuhmayo in ay ka dambeeyeen qaybna ka ahaayeen dagaalkan gacan ka hadalka ah ee lagu dhaawacay 3 qofood. Wuxuuna sheegay in baaritaanadu ay socdaan ayna hadda raadinayaan dhammaan dadkii ku lugta lahaa kiiskan ama gacan ka hadalkan ka dhacay bartamaha magaalada. Waxa uuna intaa ku daray qof kasta oo xog ka hayso ama sidoo kale ka mid ah markhaatiyaasha ama goobjoogayaasha in ay si toos ah booliiska ula soo xiriiri karaan oo ay ka soo wici karaan telefoon nambarka #2800, kaasoo uu sheegay in dhammaan xogaha ku saabsan kiiskan lagu kaydin doono laguna aruurin doono. Dhacdooyinka dagaalka iyo gacan ka hadalka ayaa ku sii badanaya magaalooyin kala duwan oo dalka Norway ah, waxaana jira dhacdooyin taa la mid ah oo ka dhacay toddobaadkan magaalada Oslo ee caasimadda waddanka Norway iyo sidoo kale degmada Halden, halkaasoo gacan ka hadallo kala duwan ay ka dhaceen. Dhacdooyinka noocan ayaa ku sii kordhaya goobo kala duwan oo dalka ah, kuwaasoo mararka qaar sababa xaalado halis ah ama dhimasho ama dhaawac culus. Halka warka kiisa ugu doorkaroon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdulaahi Shiine.